Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Angela Merkel waxay u sheegtay dadka muwaadiniinta ah inuu xanuunkii xumaa sii faafayo oo la galay waqti aad xasaasi u ah oo maalinba maalinta ka dambaysa dadka cudurku uu ku dhacayo ay sii badanayaan oo tirada ka badan tahay sidii 6 bilood ee la soo dhaafay. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, spätestens seit dieser Woche wissen wir sind jetzt in einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie. Tag für Tag steigt die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft. Die Pandemie breitet sich wieder rapide aus, schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr. Sida uu cudurku jiilaalka u faafi doono waxa lagu kala ogaan doonaa maalmaha soo socda. Waxana joojin kara ama faafin kara waa sida aan anagu u dhaqanno. Waxay sheegtay inay ku qanacsan tahay in cudurka lagu joojin karo qof kasta uu ku dhaco oo la ogaado. Ich möchte Ihnen sagen, was das nach meiner Überzeugung bedeutet. Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Dabei zählt jetzt jeder Tag. Dafür müssen die Kontaktpersonen jedes infizierten Menschen benachrichtigt werden. Waxay ka dalbatay dadka muwaadiniinta ah talooyinka ka soo baxa wasaaradda caafimaadka in lagu dhaqmo sida maaska oo la xidho iyo in la kala fogaado. Waxay tiri sida culimadu sheegeen kororka tirada cudurku waxay ku xidhan tahay dadka oo xiriirkoodu bato oo kadibna reerahooga u geeya cudurkii. Die Wissenschaft sagt uns klar, die Ausbreitung des Virus hängt direkt an der Zahl der Kontakte, der Begegnungen, die jeder von uns hat. Wenn jeder von uns seine Begegnungen außerhalb der eigenen Familie jetzt eine Zeit lang deutlich verringert, dann kann es gelingen, den Trend zu immer mehr Infektionen zu stoppen und umzukehren. Waxay tiri safar kasta ama xaflad kasta oo daruuri ahayn in laga fogaado si loo xakameeyo faafinta COVID-19. Waxay sheegtay shuruudaha inay dadku jeclayn laakiin ay daruuri yihiin. Fadlan jooga guryihiina iyo magaalooyinka aad degan tihiin. Waxay sheegtay in shuruudahan ay yihiin waxa qura ee lagaga hortagi karo COVID-19. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort. Das ist das wirksamste Mittel, das wir zurzeit gegen die Pandemie haben. Jetzt ist es nötiger denn je. Ich danke Ihnen.